Bismillahirrahmanirrahiim kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka Soomaalida iyo caalamka Somali News 724 waa habeenimo Talaado ah 10ka bisha 11 November sanadka 2020 qodobada iyo macluumaadka aan ku soo gudbin doonana waxaa qayb ka noqon doona ammaanka magaalada Jowhar oo aad loo adkeeyay iyo wararkii ugu dambeeyay doorashada Hirshabelle musharaxiinta u taagan qabashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo maanta khudbadoodii jeediyay ballanqaadi waaweyn ayay sameeyeen waan idin soo gudbin doonaa shabakad isku xiran oo al-shabaab ah iyo saraakiil lagu qabtay magaalada Gaalkacyo qarax sababay dhimasho dhaawac oo ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb kulanyo ay la socdeen ciidamada xoogga dalka ayaa la eegtay ciidamada Japan ee ka howlgala biyaha Soomaaliya oo muddo kordhin hor leh loo sameeyay saameynta uu Joe Biden ku yeelan karo dunida Islaamka iyo Soomaalida oo si weyn u soo dhaweysay maxay tahay sababta ay Sacuudiga u daahiyeen hambalida Joe Biden madaxweynaha la doortay ee Mareykanka iyo wararkii ugu dambeeyay qalalaasaha ka socda dalka Itoobiya oo meel xasaasi ah gaaray qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa fadlan haddii aad u tahay saaro gobolaadkana furo una shirkay saaxiibada meel kasta ay joogaan adigoo like kuma tiraa noo reebaya aad u mahadsantihiin aan ku bilaawno wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maanta si weyn loo adkeeyay ammaanka magaalada Jowhar oo ay maalinta biritaha ka dhacayso doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa Hirshabelle ciidamo dheeraad ah oo iskugu jira booliis iyo military ayaana lagu soo waramayaa in lagu daadiyay wadooyinka magaalada kuwaas oo baaraya gaadiidka kala duwan sidoo kale ciidamada ayaa dhaqdhaqaaqyo iyo howlgallo ka wada xaafadaha magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe dhismaha dowlad goboleedka cusub ee Hirshabelle ayaa maraya heer gabagaba iyadoo haatanba ay socoto hadaljeedinta musharaxiinta u taagan hoggaanka maamulkaas Hirshabelle ilaa 4 musharax ayaa iskugu soo taagay xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa kuwaas oo kale ah musharax Cali Guudlaawe Xuseen oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Hirshabelle oo haatan u taagan xilka madaxweynaha labo musharax Cabdiraxmaan Jaamac Cusmaan oo isna u sharaxan xilka madaxweynaha Hirshabelle saddex musharax Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo u tartamaya xilka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle iyo afar oo ah kan ugu dambeeya musharax Maxamed Maxamuud Cabdulle oo isna u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle siga sabahayeeshe xilka madaxweynaha ee afraad ee soo socda Hirshabelle ayaa waxaa loo saadaalinayaa inuu ku soo baxo Cali Guudlaawe Xuseen halka ku-xigeenkiisana loo badinayo Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo hore u soo noqday gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya Cali Guudlaawe oo maanta khudbadiisa jeediyay ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ugu weyn tahay ammaanka waxa ka qabasho la'aanta colaadaha beelaha ragaadiyay ee Hirshabelle dhacdooyinka isxiga ee ka dhacaya iyo fatahaadaha ku soo laabtay deegaanada ay Hirshabelle ka kooban tahay Cali Guudlaawe ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in haddii loo doorto xilka soo socday 4 sano in wax badan ka qaban doono Hirshabelle cusub isla markaana uu sameyn doono in Hirshabelle uu ka fuliyo mashaariic kala duwan ay dadku ay ku aaminaan xilkaasna loo baahan yahay in uu si fiican u gato sida uu hadalku dhigay waxaana weli socota qabanqaabada ugu dambeysay ee doorashada xulgufta xildhibaanada ayaa sheegaya in haatanba ay socoto qabanqaabada ugu dambeysay ee ah in Cali Guudlaawe loo caleemo saarayo madaxweynaha soo socda ee Hirshabelle 4 sano ee soo aadan naga kale dan haddii aynu fiirino saaxiibayaal ciidamada sida gaarka u tababaran ee maamulka Puntland oo howlgal qorsheysan ka fuliyay waqooyiga Gaalkacyo ayaa qabtay shabakad isku xiran oo al-shabaab ah taas oo dilal iyo qaraxyo ka fulin jirtay magaaladaasi howlgalkan oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa lagu soo qabtay ilaa 7 ruux oo ay ku jiraan 2 sarkaal oo sarsare sida ay sheegeen laamaha ammaanka maamulka Puntland ragga la soo qabtay oo haatanba ku socota baaritaan dheeraad ah ayaa waxaa lagu eedeeyay inay al-shabaab u qaabilsanayeen dilalka iyo weerarada gobolka Mudug ka dhaca sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha la soo qabtay oo la wareysay ayaa qabtay in howlgalkan ay wadeen tan iyo 2018 isla markaana ay fuliyeen qaraxyo iyo dilal intaba Puntland ayaa saraakiil u hadashay waxa ay sheegeen inay dib ka shaacin doonaan magacyada xubnaha la qabtay gaar ahaan marka la soo gabagabeeyo baaritaanka saraakiisha ayaa sidoo kale intaas ugu daray inay sii wadi doonaan howlgaladooda iyaga oo xusay inay helaan macluumaadka iyo xogta ku aadan ragga la soo qabtay Gaalkacyo ayaa ka mid ah magaalooyinka ay weerarada iyo qaraxyada ay ka fuliyaan al-shabaab iyo Daacish oo ku sugan deegaano hoostaga maamulka Puntland dhanka kale tan wararka laga helayo gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta qarax xooggan uu ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug qaraxan oo ahaa nooca meel dhulka lagu aas waxaa lagu soo waramayaa in la eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda xilli ay ku sugnaayeen xilli ay ku socdaalayeen deegaanka Liyaado Sina Dhaqo oo gaan 2 askari ayaa ku dhintay qaraxaas halka ay ku dhaawacmeen 3 kale sida ay Somali News 724 xaqiijeen in dadka deegaanka ah sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo dheeraad oo halkaas ka soo qaaday midadka iyo dhaawacyada askarta ay waxyaabo ka soo gaadhay qaraxaas la eegtay wali ma jiro wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda iyo Galmudug oo ku aadan weerarkaas qarax loo adeegsaday
maalmihii ugu dambeeyey waxaa duleedka dhuusmareb ka jiray dhaqdhaqaaqyo u dhexeeyey ciidamada dowladda kuwa maamulka galmudug oo dhinac iyo dagaalyahanada al-shabaab oo mararka qaar weeraro kusoo qaada caasimada maamulkaasi ee dhuusamareeb. qaybihii hore ee wararka soomaalida iyo caalamka ee Somali News 24 ayaa daawanaysaan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro gabadha far una shaqeeyay saxibada meel kasta ay joogaan adigoo like kuma tigna inoo reebaya waad mahadsantihiin. markaana golaha wasiirada Japan ayaa muddo hal sano ah ku kordhiyay howlgalka ciidamada dalkaas ay ka wadaan xeebaha Soomaaliya. ciidamada Japan ee howlgalka hal dagaalanka burcadbeeda ayaa loo ogolaaday in sanad ay kasii joogaan biyaha Soomaaliya ayna sii wadaan dhaqdhaqaaqyada culus. sidoo kale golaha wasiirada Japan ayaa ku booriyay ciidamada badda inay sii laba jibaaraan howlgaladooda sida ay shaacisay wakaaladda wararka ee dalkaasi ee NHK yiraahdo. ujeedka howlgalkan ayaa ah sidii loo ilaalin lahaa maraakiibta isticmaasha biyaha caalamka ee aan haysan ilaalada kuwaas oo halis u gala inay gacanta u galaan burcadbadeed. ciidamada badda ee dowladda Japan oo isticmaalaya maraakiib iyo diyaarado dagaal ayaa howlgalkan soo bilaabay tan iyo sanadkii 2009. si kastaba ha yeeshee weerarada kooxaha burcadbadeeda ayaa sanadihii ugu dambeeyey aad u yaraaday inkasta oo ay weli cabsi ka taagan tahay marinka biyaha Soomaaliya. markaana haddii aanu fiirno dalka Mareykanka, Joseph Biden ayaa la xaqiijiyay inuu ku guuleystay xilka madaxweynaha ee dalka Mareykanka asigoo guul taariikhi ah ka gaaray madaxweyne Donald Trump oo ay si weyn u loolameen. Joe Biden wuxuu kusoo gumaaray siyaasadda dalka Mareykanka asigoona xilka aqalka sare ee sanadka dalkaasi ku matalayay deegaanka uu kasoo jeedo ee Dalwaalo lagu magacaabo laga soo bilaabo sanadkii 1972 ilaa iyo 2009 markaas oo loo doortay xilka madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi. Joe Biden oo takhasuskiisa waxbarasho u yahay sharciga ayaa muddadii uu ahaa mudan ka tirsan aqalka sare lagu bartay codkarnimo iyo inuu heli og yahay doodaha kala fadhiyada isagoona meel adag ka istaagay dagaaladii uu Mareykanka ka waday dalka Vietnam taageeranaya in laga saaro ciidamada Mareykanka dalkaas. sidoo kalena wuxuu ahaa geefano oo la xuquuqda aadanaha, helidda adeegga caafimaad oo lacag la-aan ah, dhowrista deegaanka iyo qaadista canshuur loo siman yahay oo laga qaado dadka tujaarta iyo saboolka ah. Joe Biden ayaa dhanka kale xilligii uu ka mid ahaa guddiga siyaasadda arrimaha dibadda ee aqalka sare aad ugu soo horjeeday dowladdii midabta koorka ee ka arriminaysay dalka South Africa isagoona aad u dhaliili jiray siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ee ku wajahan South Africa. Joe Biden ayaa sidoo kale markii hore aad u taageeraya qorshihii lagu weeraray Ciraaq ee meesha looga saaray Saddam Hussein balse markii dambe uu ku sifeeyay qalad weyn oo lagu kacay. ka hor inta uusan ku guuleysan ololaha doorashada ee xilka madaxtinimo 7 bishan November 2020, Joe Biden wuxuu xilka madaxtinimo isku soo sharaxay sanadkii 1987 balse ololihiisa ma noqon mid najaxa. markii 2008 wuxuu isku soo sharaxay doorashada xisbiga markan wuxuu awoodi waayay inuu u bacbacdhigo ololihii musharaxtinimadii kula loolamayay xisbigii ee Barack Obama iyo Hillary Clinton sidaasna ugu hungoobay mar labaad dhankiisa kadib 8 sano ee uu ahaa madaxweyne ku-xigeen iyo 4 sano ee diyaargarow uu ku bixiyay inuu mar kale ku hanto doorashada dalka Mareykanka. haddaba doorka saameynta uu ku yeelan karo Soomaalida inteeda kale Joe Biden. maamulkii madaxweyne Obama oo Joe Biden qaybta ka ahaa ayaa dunida islaamka lahaa xiriir isku dhafan oo dhinac ka wanaagsan marka la barbar dhigo maamulka Trump. dhinacana aysan ka marnayn dhibaato uu ka geystay dunida islaamka gaar ahaan duqeymihii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ka geysteen dalalka Soomaaliya, Yemen, Pakistan iyo Afghanistan kuwa oo lagu dilay shacab kumanaan sida lagu sheegay warbixino ay soo saareen hay-adaha u dooda xuquuqda insaanka. doorkii Mareykanka ku lahaa kicinta iyo taageerada kacdoonkii ka curtay wadamada Carabta iyo duqeymihii hubanaa magaca NATO ee lagu qarijiyay Gaddafi ayaana sidoo kale lagu eedeyn jiray maamulkii Obama iyo Joe Biden markaas uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka. gabagabadii wararka Soomaalida iyo caalamka ee Somali News 24 ayaa isu soo gaaray saaxiibayaal. subscribe waxay saaraton gabadha afarto una sheegay saaxiibada meel kasta ay joogaan. boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya waxay ku qaadatay inay u hambaliyeeso madaxweynaha wareer dalka Mareykanka Joe Biden 24 saacadood iyadoona dowladaha caalamka ee xiriirka la leh Mareykanka ay la dhaqsadeen inkastoo ay dhambaal direen haddana wuxuu ahaa mid aysan ka muuqan taageer weyn ka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaana dhowr nooc u rogrogay sababta rasmiga ee arrinkaasi ka dambeysa. dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaa xiriir dhow leh Donald Trump sidaas darteed way ku adkaatay ayaa leeyahay inuu dhaqso uga hambaliyay Joe Biden oo guul weyn ka gaaray. sidoo kalena madaxweynaha la filayo inuu 4 sano ee soo aadan hogaamiyo Mareykanka wuxuu sameeyay ballanqaadyo ka dhan ah boqortooyada dalka Sacuudiga. waxyaabaha uu ballan qaaday Joe Biden waxaa ka mid ah inuu ku laaban doono
inuu ku laaban doono heshiiskii hubka nukliyeerka ee dowladaha islaamka iiraan inay wax ka qaban doonaan dhibaatooyinka bani-aadanimo ay geysteen sacuudiga, iyadoona si gaar ah loo soo hadal qaaday dilkii Jamaal Khashoggi. sidoo kale Joe Biden wuxuu ka fiirsan doonaa taageerada ay Mareykanka ay siinayaan dhigooda sacuudiga dagaalka ka socda Yemen. waxyaabahaas ayaa ugu waaweyn sababta uu Maxamed bin Salmaan u daahiyey faafinta ama fariinta hambalida ee ku aadan Joe Biden guusha uu ka gaaray Donald Trump. guud ahaan daawadayaal waa inta wararka Soomaalida caalamka ee Soomaaliya kama duwan kala socoteen fadlan subscribe ka saaro gambar kana furo una share gareyn saaxiibada meel kasta joogaan. adigu wallahi kuma tagina inuu reebaya aad baad u baahantihiin.